dad badan ay ku kadsoomeen. dadka jooga dhakhtarka umniyadooda ugu weyn mataqaana qofka dhakhtar ku jira waxa ugu weyn ee uu rajaynayo qofka dhakhtarka ku jira waa inuu marun kaco akbar umniya. dadka inta haysataa ma ogtay subax intaad soo kacday ma tidhi alxamdulilahi rabbi alcaalamiin saaka waan caafimaad qabaa, mise waa daily life waa sidii dee rootiinka ahayd aad rajaynaysay inaad subaxii iska soo kacdo oo durduriso oo meelaha marmatid oo soo noqotid already waad rajaynaysay. wuxuu nabi maxamed tilmaamay calayhi salaatu wasalaam nicmooyinka ugu waaweyn ee bini aadamku uu garan karay la'yay waxa weeyaan caafimaadka iyo waqtiga. ninku markuu dhallinyarada yahayna waa labada ugu fiican ka da'da la gaadho labaduba way lumaan. da' markaad sii jirtaba caafimaadkaagu hoos buu sii socdaa, isla markaa waqtigaaguna wuu sii yaraadaayo waa lagula yeeshaa. calaa'iqda iyo dadka kugu xidhan iyo mushkilaadkaad xallilaysay ayaa badanaya, markaa wax badan baana jaanis u helin. laakiin ninku markuu dhallinyarada yahay labadaba keligiiba haystaa. caafimaadkana inta badan mostly dhallinyaradu caafimaad qabtaa, waqtigana waxbaba kuma xidhna, isagaa maamusha. waxa uu nabigu inoo tilmaamay calayhi salaatu wasalaam si aynu u fahamno waqtiga qiimihiisa, ilaa markaasaynu idaarayn karnaa, markaasaad garan kartaa maxaad ku qaban doontaa. qiyaamaha marka la tago su-aalaha ugu horeeya la isweydiinaya ilaahay hortiisaa lagu joojinaya, dhaqaaqi maysid su-aalaha inaad ka jawaabto mooyaane. su-aalo 5 ama 4 riwaayadka xadiis waa ku soo arooray. waxaa lagu weydiinayaa cimrigaagii iyo waxaad ku bixisay. qiyaamaha ilaahay hortiisa ka dhaqaaqi maysid inaad su-aashaa ka jawaabtid mooyaane. maxaad ku qabatay cimrigaagii? waa mar labaad waxaa lagu weydiinayaa cimriga qayb ka mid ah, war dhallinyaronimadii sidaad u gashaa lagu weydiinaya waqtigaad dhallinyarada ahayd. mar saddexaad waxaa lagu weydiin xoolaha xaggay kaa soo galeen iyo xaggaad ku bixisay. mar afraad waxaa lagu weydiin aqoontii maxaad ku qabatay, wixii rabbi ku baray waxaad aqoon heshay maxaad ku qabatay. su-aalaha kani waa su-aalo qof kasta oo aadama a sugaya in aakhiro la weydiiyo. 4 su-aalood markaa 2 ka midi waa cimriga. midi waa cimrigii oo dhan iyo noloshaadu maxay hadaf lahayd, maxaad qaban jirtay noloshii oo dhan. midna waa cimriga qayb ka mid oo ah qaybtii aad ugu caafimaadka iyo firaaqada badnayd, waa markaad dhallinyarada ahayd. waa qaybtii iyadoo labada nimcee dheeraadka uu nabigu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam. sida awgeed qofka muslimka ah mar kastoo cimriga laguu sii dheereeyabana xisaabtiisaa sii badanaysa. awalam nucamirkum maa yatadakaru fiihi man tadakar waja'akum الnadiir faduuquu famaa lilظaalimiina min nasiir. ilaahay wuxuu leeyahy awalam nucamirkum, war miyaanan idin cimri siinin mid waantooba inuu ku waantoobo baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala. nabiguna xadiidkii bukhaari wuxuu leeyahay acdara allahu ila mri'in akhara ajalahu xataa balaga 60 sana. ilaahay waa u cudur daaray ninuu dib u dhigay oo ajashiisa dib looga dhigay ilaa 60 ka gaadhay. yacni 60 haddaad gaadho cudurdaarna xataa heli maysid baa la leeyahy. imaam alxasan albasri raxmat ullaahi calayh ayaa waxaa laga sheegaa inuu odhan jiray ya bna aadam inamaa anta ayaam kulamaa dahaba yowmun dahaba bacduk. wareer nebi aadamow maalmuun baa tahay buu leeyahy, maalin markay kaa tagtaba qayb adiga ka mida baa tagtay. idan cimriga la sheegayo iyo waxaynu haysanno waa secondiskaas. secondisku adiga qiimo kuuma leh, laakiin nolosha marka la xisaabanayo mar buu jajabku qiimo leeyahay. qoladan orda maxay kala dheereeyaan?
كون حفت عررة 9 بوينت والسكندس وحكير أي قيمة أسمية. إذن ثانية أما السكن وحكير أي أول لغو قلامة طول لغو قلامة جايزة لغو هلا ما مقع لغو ياشا ما كان لغو ياشا. هذا ما وقته قفك بني آدم كهوا وقتك عين كاله سدا قيمها أوله كفايدة سيسو حكو حلي بين هذان قيمها وقتك نتفهمت هذه قيمها هي أهمية وقتك أولي وفهمه قفك بني آدم كاي وحاو فهم يا قرنيا سيدا uga faa'iideysanayo dadka badna xanuun buu ku noqdaa markay qiimihii waqtiga garan waayaan xulay wax allaaliyo waxaan qabtaan garan waayo waqtiga maxaynu ku dilaa haddaad dhimato waxa quraanku inoo sheegay bini aadamku inuu ku warwaraa waa maxay rabbi irji'uun ilaahu iceli waa kan adimka garan laaday si aad tiraahdo ayaa calaalku noqon doona ilaahu waqti yaro damba halaysiyo hadduu markaa qofku bay yidhaahdaan hadafku ka lumo qiimaha waqtigu uu ka lumo ahmiyadiisa uu garan waayo waqtiga laftiisa qofka xanuun ku noqda ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عليه حديث كي بخاري نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ